kan ayaan naga dhexeeya insha allah kan ayaan u dagaalamaynaa kan diinta islaamka inagoo haysana ayaan guulaysan doonaa insha allah ha israacdo soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha jirto soomaaliya ha guulaysato bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada garabla tv oo aad uga barateen barnaamijyo xiise leh magacaygu waa yaasiin aadan weheliye daawadayaal waxaan idiin soo bandhigaynaa oo rabnaa barnaamijkan inaan uga hadalno xiisada ka taagan geeska afrika oo u dhexaysa wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya haddaba maxaa ka jira geeska afrika maxaasa tahay inay Soomaalida ku baraarugto waxaan la soconaa in dowladda Itoobiya ee damaceeda soo jireenka ah uu yahay in ay badda Soomaaliya qayb ay ka hesho iyadoo oo boqortooyooyinkii hore ee dalkaasi ka jiray ay damacaasi wadeen muddo dheerna ay ku tala jireen in ay badda Soomaaliya qabsadaan xoog iyo xeelad labadaba balse ay u suuroobi weysay iyadoo oo awooyaasheenii ay damacaasi ka dhigeen mid binooba haddaba Itoobiya wali maraja beelin iyadoo haatan dabacsan in ay baddi sida ay wali u raadinaysay ay ku hesho ay xuxoodatay oo ay sida maski ugu soo seexseexatay walaalaheena waqooyiga Soomaaliya waqooyi galbeed aan iraahdee ee haatan la magac baxay Somaliland iyadoo halkaasi memorandum of understanding wax la yiraahdo ama heshiis qabya ah ay la galeen madaxweynaha waqooyiga Soomaaliya oo haatan la baxay Somaliland Muuse Biixi waxaa bilowday kadib ololahaasi oo dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay heshiiskaasi beenaadka ah ay uga hortagto haddii uu noqon lahaa xeelad diblomaasiyadeed iyo mid cudud military labadaba dowladda Soomaaliya waxa ay raadisay xulufo waxa ayna heshay dalka Masar iyo dowladda Turkiga oo iyadana ballan qaaday in ay ilaali doonto badda Soomaaliya mahmaah Ingiriis ah ayaa jirto oo dhahaysa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibkaaga your enemy's enemy is your friend haddaba dowladda Masar annaga haatan waan u baahannahay sababahaasi ayaana wadanka Soomaaliya xiriirka sida dhow ula samaysay dowladda Masar dhanka miidiyaha waxaa jira dagaallo fara badan oo ay qaadayaan profesorada iyo la taliyayaasha Itoobiya iyaga oo propaganda gelinaya Soomaalida dhexdeeda kanana qoobaya oo u raadinaya dulduleelo iyo tashwiish in ay dadka Soomaaliyeed ku furaan taas daraadeed waxa aan rabnaa in aan dalka Soomaaliya iyo dadkoodaba in aan annagana aan muujino in aysan ahayn igu soo orod dalka Soomaaliya oo ay leeyihiin dad khubaro ah oo ka digtoon kana foojigan dhagaraha ay la damacsan yihiin dalkeena Soomaaliya haddaba barnaamijkan waxaan rabaa in aan idinla wadaago nin la taliya u ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya loogu yeero Brooke Halo oo waraysi siiyay idaacadda dalka Itoobiya waxa uu ka hadlayaa Soomaaliya sida ay u kala qoqoban tahay iyo waxyaabaha uu isaga aaminsan yahay in ay ku dhici doonaan 10 sano ee soo socda dalka Soomaaliya waraysigaasi oo af Soomaali lagu turjumay ayaan idinla wadaagayaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in ay si dhiranaan ah uga hortagaan ficilada xagga miidiyaha ah ay isticmaalayaan dadka Itoobiyaanka ah iyo midka awan ee ay ku doonayaan dhulkayaga in ay ku qaataan haddaba waraysigaasi bal ila dhageysta nuxurkiisana aad u dhuuxa bal arka ninkaasi waxa uu ka hadlayo iyo riyada uu ku jiro riya maameedka ah bal inala daawada waraysigii oo af Soomaali lagu turjumay Somaliland way ka go'day Soomaaliya inteeda kale Puntland xitaa way bedeshay istiraatiijiyadda Soomaaliya aad bay hadda uga niyad jabsan yihiin habdhaqanka iyo go'aanada dowladda federaalka ee Soomaaliya inay Masar casuuntay guud ahaanba way ka soo horjeedaan arrintan waxayna dib ugu fakarayaan inay madax bannaanaadaan sida Somaliland oo kale waxay hore u weydiisteen Itoobiya inay ka mid noqdaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Itoobiya waxayna muujiyeen sida ay u daneynayeen inay konfederaal ka noqdaan waqtigii uu talada Itoobiya hayay Mele Zenawi isbedel ayaa dhacaya waxaad sugtaan 10 sano waxa la arkayaa gobolo kale oo dhasha oo jidkan soo mara Somaliland way go'day Puntland way go'i doontaa moogin waqtiga Hirshabelle sidoo kale cid joojin karta arrintaasi ma jirto sidaasi waxaa leh Professor Brooke Halo oo ka mid ah la taliyaasha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
oo waraysi siinaya mid ka mid ah warbaahinta Itoobiya. saaxiibayaal waad dhageysateen waraysigaasi ninkaasi waxa uu ka hadlayo waxa uu leeyahay Somaliland waa ay go'day Puntlandna waxa ay haatan damacsan tahay sidii Somaliland oo kaleeto in ay goosato isaga oo soo qaatay shir uu sheegay in uu ka dhacay Itoobiya oo ay Puntland ku codsatay in ay la midowdo dalka Itoobiya waagii uu joogay Meles Zenawi. hadalladaasi waa hadallo been abuur ah oo la rabo in dadka Soomaaliyeed cadaawad dhexdooda lagu geliyo lana rabo in lagu sii kala qoqobo dadka Soomaaliyeed. waxaan rabnaa in aan uga digno in aan hadallada dadkaasi ay sheegayaan la soo xigan lana soo qaadan. dadka u dhashay Puntlandna ay yihiin dad Soomaaliyeed oo ru'aantii ay ka go'an tahay dalka Soomaaliya midnimadiisa iyo wadajirkiisa. haddaba waxaan kaleeto oo rabaa in aan Soomaalida khaasatan dadka dega gobolka Banaadir iyo agagaarkiisa in aysan dadka kale ee gobolada kale dega sida Koonfur Galbeed aysan hadallada qalafsan u isticmaalin. haddaba waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo uga digaynaa cadaawaha uu qabo Itoobiya. waxa uu rabaa dalka Soomaaliya tashwiish in uu ku furo xagga miidiyaha ah. dowladda Itoobiya waa cadow gaamuray oo damacsan in uu dalka Soomaaliya qabsado isaga oo u soo maraya dhinacyo fara badan. waxaan ogsoonahay dalka Soomaaliya in ay ku nool yihiin qoomiyadaha dalka Itoobiya kuwa ka mid ah oo si qaxootinimo ah ku soo galaya haddana damacsan in ay dalka Soomaaliya dhexdooda ku tarmaan si ay u sheegtaan Britole. cadowtinimadaas ay dalka Itoobiya qabto dhinacyo fara badan ayay ka soo galaysaa Soomaaliya. waxa ay rabaan in ay Soomaalida dhexdooda isku diraan iyagoo adeegsanaya qabiilada kuwa iyaga u shaqeeya oo aflagaadeynaya qabiilada kaleeto kuwaas oo haddana kuwii kaleeto ay u soo jawaabayaan. waxaan rabnaa in aan ummadda Soomaaliyeed uga digno in aysan dabinkaasi aysan ku dhicin oo dadka Soomaaliyeed si midaysan cadowgaasi looga hortago. hadallada wanaagsanna la adeegsado meeshii laga adeegsan lahaa hadallada qalafsan oo dadka iska horkeenaya. ummad midaysan ayaa dalkeeda ilaashan karta. ummad midaysan ayaa horumar gaari karta. ummad midaysan ayaa cadow iska dhicin karta. haddaba ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midnimo wadajir iyo in ay cadowga hal dhinac uga soo wada jeestaan. haddii ahaan lahayd Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland iyo dadka ku nool waqooyiga Soomaaliya ee Somaliland. waxaan ogsoonahay in inta badan ay dadkaasi yihiin dad gob ah oo jecel Soomaalinimada una soo dhinteen intooda badan si dalka Soomaaliya uu xor u noqdo balse dadka maamula ay jahwareeriyeen. haddaba waxaan leeyahay Soomaaliyay mid noqda cadowgiinana ha u damayn la'aanina. la taliyaha maalinta cad riyoonaya ee magaciisa la yiraahdo Brooke Halo in uu hadalkiisa uusan noqon doonin mid dhabooba una hal bacaad lagu lisay noqon doono. haddaba saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkan waxa uu yahay barnaamij wadani ah oo dadka aan ku baraarujinayno in ay dalkooda difaacdaan ayna ku midoobaan. saaxiibayaal daawadayaal intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamij lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadiino dalkiina